كورما قبلها ما أنت كوجو دينيو هدي حير قال لو صورة قالين وإن الدين تأجب حياة قفك إيمانك سينتو تشرا سمحان كو قياسي كرنا قفك ما قف دينتك جاهلة وجهل من أقول عذر دارا مسوى قف كسئي ولا كع وصو كعي ومدى إسلام كأنه دينته تشويش كغفر أنا وحال إسلامي هو قف لصادري ومدى إنه دينته تشويش كغفر الله صادري وحكسي دار لكن وكسي حن النجا ويلنا دجاها ويلنا يو وسعبتهم ينهرن ومالين أرنكاسي وحكسي دارن النجا كوكنا عني إن الإسلام النجوا بوق يروحون انتينا لا دحكينين لا يراهدو بوقاسا إذن معمولة كتابك الله فوق 7 سماوات laga soo dajiyona dhaxyaalo waxa gabadhaasi dhiiranaantaasi siiyay inta la eg in aan ogolaanay ayadoo qaawan inay tiraahdo dumar baan afhayeen oo ahay qof alla amarkiisa caasiyay miya afhayeen ku noqon kara adoo muslimada mu'minada xaasha wakalla ugu horeynba gabdhaha la gabdhan matalayna haddii ay is ogyihiin haddii is ogeynba waxa ugu horeeya ku tunteen maxay tahay aayaadka Allah subhanahu wa ta'ala oo kow in ay jidhkoodii ka asturaan dadka islaamka ma aragtaan gabadh matalaad rasmi waxyaabahan la soo dhoodhoobay ku dhaxle oo xijaaban oo asturan ilaa man raxima rabbuha intooda asturanna lama arka ayagoo fawaaxishta la soo daahirayaan kuraasta ay leeyihiin dumar baa ku matalaabay ku dhaxaamusan dulmiga kale iyo jawrka dawladda dadka islaam ban matalaynaa leh ay ku haysa gabdhaha muslimaadka waxa weeyaan in ay tiri qoondaan gabadh u sameeyaan waayo sid kaleeto weeyaan waxyaabihiisa isu dhalayeen midba mid dhagaha looga haystay qawaaniintii wadciga ahaa ee u sacabatumeeyeen maalin walba madaxweynaha dhaco kuba soo fuulay aan lahayn ku kala sacabatumeeyeen ee naxwa qabiil ay futada naga wadiya salka ay naga waday waxay soo socotaba maanta waxay maraysaa in caruurteeni iyo anagii muslimaadka ahayn banala dhaho waxaan idin dhoodhoobeynaa waxyaabo yar yar waxaasad ku qancaysaan in gaal uga soo qaadatay lacagna ay dabada ka wado waxbuu dhalaa waxa markuu weyn yahay hadaanan lagu hortagin loona arkin inuu xumo yahay haddii maalintii buugaayanka ee xunka ku walba uu miiska ku garaacay maalintii la keenay intaan mudaaharaadna aan dhahno dad islaam aan nahay dadkan xabadda nagu dhaxwatay maalin walba waxay ummadeena u laayeen aan la garanaynin waxay u laayeen ummaddiina nag ka dhigay ma soo baxeen annagana waxaan ahaan lahayn ummad muslimiin oo qur-aankooda iyo diintooda haysato Soomaali 100% waa islaam Soomaali 100% waa dad ka dhiidhiyo diintooda iyo nafta gabdhahooda in loo dhaco laakiin wixii waxba soo gudbayo wax yaraynan u maleynaynin bidaarsiba kugu gashay Soomaali tiraahdo ayna u maleynaynin inay dib u keeni doonto ay si fudud ku aqbaleen ayaa maanta dhibabkiisa midba midka kale midba mid ka xun maalinta ka dambe ka soo saarayo maalinta ka dambaysa midkii mid ka xun soo saarayo ilaa hadda ay gaadhay in Allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa ay ku dhaarato gabadh ayadoo garanaynin waxa ay u dhaaranayso Rabbul Izza jalla jalaaluhu haday ka xishoonayso magaciisa kuma ay dhaarateen ayadoo wasakh wadato rijsi iyo xumo wadato هذا ضد بقولين وحيليه وحي بين تعديلات كسمينهن أي تعديل هذا محبة بدل الوصمين وحنا بقولهم بهاي ما لوضع طور بالشدة الصوماليات وحي لقب ستدوه هذا إن له ماني والبا قبل له دعت يا شتكوذا محاكة شرارنتا هدي وحكة شرنا وأرمى أي مال جرينا يان
oo lacaga ku bixinayaan hay'adaha ka dhex shaqeeya wadankeena haddii tala la iga yeelay ummadda Soomaaliyeed fariin baan bartan uga diraya risaalo aan uga faa'iideysanay maanta muxaadaradeena ummad islaameenahay hay'ad kasto magac kasto oo hay'ad ku imaato wadanka dhagax lagaga soo saaro buugoodii warqadahoodana ha la jeexjeexo لأنه maamul goboleedaha wadanka ka jira qaybo kamida markay dabagaleen kufsiyaasha qaar ka dhacay wadanka waa nacbahay inaan afafkay ku sheego waxyaabahaas oo kale waxaa fangareeyo hay'ado waxaa taas daliilkuugu ah hal qof intuu xuma sameeyo uu bareeri karaa gabadh inuu meel intuu ka afduubto xuma ku sameeyo waxaana ku baaqaynaa ka inuu dil ahaado laakiin waxyaabaha ayna aqliyada Soomaaliyeed keenin ee dareemi karta inay tahay dad lacag la siiyo waxa ay fulinayaan waa kufsiga hadda ugu cusub ee dhalinyaro dhowr intay hal gabadh afduubaan ay soo wada faraxumeeyaan haddana soo duubaan waa arrimo ugu cusub arrimahaasina waxa keenayo hay'adaha wadanka dhex tuuran ee mid walba 100 qandaraas ay wataan ayna hor wadaan rag dayuusiina iyo gabdho muru'adi ka dhacay oo diintoodii ku badashay bicarad min ad-dunya wa ma fiha waxay rabbi raqa dunya $10,000 la soo si ayuu diintiisii dhanayd ku gatay oo tuuri maaya gabadha walaashii ee muslimada ah oo ma tuuray ee taqariirta uu gudbinayo una fiirsada kufsiyada xilliyo kooban bay dhacaan xilliyadaas waxa weeye xilligii hay'ad walba ay gudbin lahayd malafkeedii camalkii qabatay shaqadii gaalka ay lacagta kaga soo qaadatay intaasan sameeyay heblayna ka dhacday inay tiraado xilligaas ayay waxay ku maalgelinayaan oo ku fangareynayaan in icraadi gabdhaha muslimaadka ah lagu xad gudbo in bulshadii ummadii Soomaaliyeed ay ku abuuraan cudur xun oo wasakh ah in ay ayaga bidil adduunyo helaan Allah subhanahu wa ta'ala kuwaasi haduu hanuun oo la damcay ha soo hanuuniyo haduu hanuun la damcina si degdeg ah ummadda islaamka Soomaaliyeed kaga soo qabto bal inaga kaliya Soomaalida ma aha adduunka islaamka oo dhan ayaa arrimaha lagu soo daayay haddii ay run sheegayaan qawaaniintan wadamada galbeed ee gabdhihii la qaawiyay ee shaqada la wada galiyay may wax u taraan ma jirto taqriiraadka qaar marka la akhriso maalin Allah keenay gabdha ayaa wadamadaasi lagu bahdila oo lagu faraxumeeyo oo lagu dhibaateeyaa warqadaha xunxunka ay wataan haday dad u adeegayaan ayaga qortamay u adeegaan oo qabtaan may وحكمك الله سبحانه وتعالى كسر يوك وناكسن ما لها أوقف مسلم له كرامي جمد مسلم هذا أنا أوقسي وناكسن ما لها وحالينا هدتك وحال أرديو أفحكم الجاهلية يبغون ومح جاهلية أهبت أكل روريسان أو تربتان ما وحات ربتان قبله إسلام كائن هذا عليسان وحي أهان شرين نسوا حات ربتان هاي قلبك وذا أوه نبكي أي كتيران إن أتقبلها إسلام كجلسان كلا وحاشا أنت نوش هاي قبل إسلام أو كريلي كرت كتاب كإسلام كا أو دين تذا ودي كرت أنت شوكتو وانديدني أنتو قف مسلم أو نخوالة وتشوغو وانديدني أنتو عالم رباني والله يوجيك سارية إفكنا كنو ليه وانديدني واندينا وحال لو ريغيسان ويكفينا كتاب الله فخرا ودين الإسلام كرامة وعزة وحنوفي للإسلام ماذا نذا أيضا نقبلا وحكلنا مربنا وحانات صلاة نبتين ورقلها كقرتين واندينا أفبانا لينهاي كربانا لينهاي للابتع هدي العقل لدين هايستو والعقل عنتين لدين ليهاي كينا ولا ليالو النوشي قارن بلدين قرينا ومادة الصوماليات بايدين قاراميسو أخلاق حمادة إيا وسخدة اللي وريقيسان هدي إسلامية هنون أدو جيدان لعقتا لدين إسوايدين كبحنين هدي كالوهين ودمادي قالت كالتي مادين قولون كان إن عرورتا نادي كالسو عرارين إنو الإسلام إذو سعلينين كورا اللابتا ميشا سيفخري كتاي هدي أتفانو أركتاي إنا أركتا داد إسفولفولا يا وسخة أما أتربت قبل قاونات كودا وتات كراحيسته أما أتربت المال وعلا ملاك وأراركته دول بيكبوحان دول باو حريسان
dhul bay sifiirkay wax walba la joogaan dhul bay wasaq walba la joogaan ay daroogooyinka ku cunayaan billaahi calayk aad meeshaas billaahi calayk dhulkanaga hanaga wasakhaynin ummadda islaamka dhawahooda annaga ilmahanaga hanaga wasakhaynina hana wasakhaynina dad nadiif oo islaamaan nahay ma naqaana waxa aad sheegaysaan haddii uu dhaco bulshada laga helana axkaam baa noo dejisan kaasi waan dilaynaa oday annagu lacag qaatay oo gabadhiisa cirdigeedii in yaroo lacaga ku qaatay nama matalo sharciga xunkeed soo dhoodhoobtayna noogama aha qaadiga annaga waa alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa kaasaana ku soconaynaa kaa dulmiga noo geystayna waxaan rajaynaynaa maalin uu kitaabka alla shaqeeyo inna looga qaado dulmigaasi uu noo geystay waxaa kaleetoon u baaqayaa gabadh walba oo muslimada diintaada baro yaan lagu waramin warbeenon jirin yaan dhegtaada lagu shubin wax kula rabo wanaagoon diinta islaamkii ilaahigii ku umay aan ahayn ma jirto bara diintaada ku dheg oo waxaad ku qabsataa gacantaada midigta ah yaan lagaa waswaasinin oo shayaadiintu hadalka markay ku celceliyaan marka dambeeta hal buu noqdaa wax lala qabsada ayuu noqdaa yaana weligaa lagaa dhaadhicinin wasakda ay la wareegayaan kitaabkaaga iyo diintaada kuma dulmiyin dhaqanka yar ee Soomaaliyeed ee khaldamayna yawman ma waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa inay soo noqdaan oo dulmigaasi ay ummadii bulshada ku dhex jirtay in laga qabto بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا أخواتي الكريمات الله سبحانه وتعالى وحونا وقال الله يستي إن نغدقي قبل مؤمنات ونعمة قفك مسلم كألا سيين نعمة أقوين قفك إن الله سبحانه وتعالى انت بشريتك قالوا ذي بنانك مرتي إنه الله سبحانه وتعالى هدايتك سيي وقف مسلمة أو مؤمنة كارجة مداسي سيدة ذو الشكر ذو وحي أباهن تهي إن آد نقطة آدون الله سبحانه وتعالى وهو قان سمي diintiisii iyo wixii la faray iyo wixii laga reebay mid walbana uu qaato Allah subhanahu wa ta'ala gabadha muslimada ah gooni ahaan wuu sharfay wuuna karaameeyay ayada oo umamkii jiray ama qawaaniintii ay dejisteen mid walba uu dulmiyay oo dhabarka ka jabiyay Allah subhanahu wa ta'ala nabiga uu soo diray waxyaabihii uu la soo diray alayhi salaatu wassalaam waxay ahayd gabadha in uu ka saaro dhibabka loo geysanayo iyo joorka iyo dulmiga lagu hayay dulmiyadu way farabadnaayeen mid dhaqan ahaan loo sameynayay iyo mid kuwa diin sheeganayaba ay u cuskanayeen diin ahaan dulmiyadaasi waxaa ka mid ah sidaad quraanka ku aragteen in gabadhii iyadoo yar la xabaali jiray markii la dhaho gabadh baa ku dhalatayna oo sidii asagoo balaayo loo sheegay intuu wajiga madoobaado uu dadka iska qarin jiray yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bihi wiil Allah subhanahu wa ta'ala asagoo ka waramay xaalka ay ahaayeen markaas ay ku sugnaayeen bas tama ahay qaar kamida ilaa hadda bulshaduna ay ku sugan tahay oo markii la dhaho gabadh baa ku dhalatay aad u mooday in hoogiisii loogu yeeray oo la yiri balaayaa kugu soo korodhay
waxyaabihii alla subxaanahu watacaala uu ka bixiyey gabadha ee dulmiga ay ku jirta waxaa ka mid ahayd ayadoo hantida waxba looga ogolayn oo nafaqada reerka aanu waxba laga siinin ninkii uu xaaskiisa sidii adoon camala u haysto waxyaabihii oo dhan aayaad qur'aan oo munazal ayuu alla subxaanahu watacaala ku soo dejiyey si uu u sheego gabadhu inaynu ninku waxba ka soocin waxaan axkaamta alla subxaanahu watacaala uu qeyday aana ka ahayn bal ayada karaamo iyo ilaalin gooniya la siiyey loo yeelay boodhkaadhyo ilaaliyo dee boodhkaadh waxaad ku barateen inay madaxda uun la daba dhige laakiin gabadha muslimadda alla subxaanahu watacaala dad ayuu ku xayndaabay ilaaliye sharafteedii iyo karaamadeedii dad maxaarim la dhaha ayuu alla subxaanahu watacaala u sameeyey oo rag ah oo mid walba la rabo gabadha inuu ilaaliyo oo wanaageeda u ilaaliyo xumahana ka ilaaliyo wixii ku soo diri lahaa ama adiyaab albashari waxaa la dhaho ragga horarka ah in ay haysato gaashaan ka celiyo oo ayada ka ilaaliyo alla subxaanahu watacaala qofka uu sidaa u karaameeyey ee meeshaasi uu gaadhsiiyey wax kaleeto oo alla subxaanahu watacaala ka rabay ma lahayn oonan ka ahayn cibaadadiisa iyo axkaamtiisa inay u hoggaansato alla subxaanahu watacaala wax gooni ah oo uu ninka intuu dheeraysiiyo adiga aad kugu sii farad yeelo uu kugu imtinaan sheeganaya ma laha oo addoonnimada annaga iyo dadka naga dhaxaysa aan ka ahayn alla subxaanahu watacaala haddana duruufteeda nololeed ayuu ayadana haddana siiyey axkaam iyo waxyaabo kaleeto gabadhu xaalad waxaa jirta caafimaad ahaan in la dayactiro la ogaado ay u baahan tahay oo la dhowro gabadhu markay bishii 6 bilood ka fadhiisato alla subxaanahu watacaala bixikmatin yaclamuha salaadihii 5 ahaa buu kaa cafiyey haddana gabadhii umushahayd ilmaha yari ayadana haysatay baa lamida ee ku jirtay xilligii uu ilmaha ka soo baxay ee ka socday dhiigii nifaaska ayadiina waxaa laga dhaafay salawaadkii soo celina laguma dhihin mashaqaas oo alla subxaanahu watacaala kaaga turay soonkii unbaa lagu yidhi maadaamuu sanadkiiba 1 mar u ahaa asaga soo qalle waxaasoo nicmooyin oo alla isu keen dul saaray ayaa waxaa yimid dad sheeganayo inay alla nooga naxariis badan yihiin waxaa yimid oo bulshadii ku soo biiray dad raba inay gabdhihii muslimaadka ahaa ka dhaadhiciyaan inay alla oga roon yihiin waana been waana hadal ugu been badan hadal la dhaho qofkii khaaliqa ahaa ee ku uumay ee mudabbirkaaga ahaa ee shu-uuntaadoo dhan la socday ee intaasoo naxariisa iyo axkaama kuu soo dejiyey keliga inuu ku ilaaliyo ku dhowro inuu ku dhaho nin gaaloo soo dhoodhoobay waxyaabo anaa ilaahay kaa xaal ogay aniga isoo raac alla subxaanahu watacaala gabadha muslimadda ahi inayn dhibab ku imaanin darteed wuxuu u sameeyey waxyaabo ay ku dhowrsato oo gaashaan oga ah midda koowaad waxaa weeye gabadha si akhlaaqiyaadkeedii wanaaggeeda loo ilaaliyo alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi guryihiina ku nagaada haddii ay jirin daruuro idin soo bixiso waa kuwa alla subxaanahu watacaala suuratu laxzaab ku yidhi waqarna fii buyuutikun ku nagaada guryihiina markii lagu leeyahay gurigaaga ku nagow haddaynan daruuro ku soo bixinin maxaa lagaala cararayaa ummaddaasii qulqulayso ee socoto in xumo wadda abaa jirto inayn xumahooda iyo dhibkooda kugu ridin inaynan kugu daaran inay ku tallaalin waxaad gaashaan iyo wanaag ogaga tahay inaad gurigaagii ka joogto midda labaad waxaa weeye inay gabadhii la faray inay jidhkeeda asturto
الله سبحانه وتعالى إسلا سورة الأحزاب حكوية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحد قتل على هبلها إيا هوينكاغا إيا قبلها مسلماتك إيا قبلها هذه الشيبة وحد اسكر رارعسان وتشتكي إنك أسترتان حجابك. الله سبحانه وتعالى فإذا محيره ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. saas ayaa u dhowrsanaan badan oo inaan la dhimin oo gabadha lagu ajaa'ifeenin aanu markaad asturan tahay qofkaasi wuxuu ka xishoonayaa jidhkaada aad ka qarisay kuguma soo dhici karo durba sida uu gabadha kale ee qaawane banaanka isdhigtay oo afkooda laacayo maradaasi ayaa waxay tahay waasic iyo gaashaan kaa celiyeysa qofkii kula damacsanaa xumo. midda saddexaad waxaa weeye alla subxaanahu watacaala waxyaabuhu gabdhaha suluugoodii akhlaaqaadkooda ku ilaalinayay inuu ka reebo inay isqaawiyaan. الله سبحانه وتعالى قرآن كسادر وحكيد ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إسقاوينين سيدي إسقاوين شيرين جاهلية ذي هورا ومثل ما ماشي قرحصان أي سو ساري جرتي حتى وان كنت الرابد أمو دا آفات كصوب حيبه كميتهاي إني جاهلية ذي هورا يددكي هورا قال ذاها وحيابه يسمين شيرين أنا هذا الدب أقول نقولنا gabadh walba mafaatinteedii iyo maxaasinteedii meesha ugu quruxsanayd in intay qaawidee la fadhido baraha bulshada. Allah subxaanahu watacaala hana asturo. mida afaraad Allah subxaanahu watacaala uu akhlaaqiyaadkeena ku ilaaliyey waxa weeyaan inuu nafaray inaan isheena laabno aana xifdino xubinkeena taranka ah. ishaada mar walba ay hoos dhowrto waxay u tahay ayadu mar walba isha aad sii dayso inay xumaatooyinka aragto kuuna fududayso adigii laftirkaaga inaad ku dhacdo. mar walba ishaadu gaabanto alla macaasidiisii aad ka foorarsato oo indhaha la raaraacin ragga iyo waxyaabahaasi waxaa kuu sahlan in aad ilaashato cifadaada iyo dhowrsanaantaada. midka shanaad waxaa weeye inuu alla subxaanahu watacaala gabdhaha ka maanicay in ay quruxdooda ku soo bandhigaan banaanada ama qof aanan maxaarimteeda ahayn. anagoo dhan qurux baan nahay haddana gabadhu haddii ay isii naashnaashto isqurxiso quruxdeeda qurux kale ku dartay. jidhkaaga khalqiga ilaahay uumay sidiisuu ku quruxsan yahay haddana adigii haddii aad sii waxayso ishagaajisay quruxda ama dhar ha ahaada aad xidhatay ama waxa ismarmarisay ahaatee Allah subxaanahu watacaala uu kaa reebo waxaanan maxramkaaga ahayn in aad tusto. waxyaabaha kale oo alla suluuga iyo gabadha akhlaaqiyaadkeeda ku ilaaliyo waxaa ka mid ah in uu ka reebo inay hadalka u jilciso ragga. Allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walaa takhdacna bilqawli fayatmaca alladii fii qalbihi marad. hadalka ha jajabinin oo ha jilcinina si uuna idiin soo damcin markaasi kii qalbiga ka jiranaa oo damaca ragga uu ku jiraa uu aadka ugu badnaa hadalkaagii aad jiljilcisay iimaankaa celiya aan lahayn uu ku dababoodi. waa rag iyo dumarka hadda waxaana haysta kaftanka dhexmaray iyo qosolka la isu jabinayo oo lagu leeyahay waan wada sheekaysanaynaa. waxyaabo alla subxaanahu watacaala gabdhaha ka reebay weeye inaynan ragga ajaanibta ka aynan la samaynin. waxyaabaha kale akhlaaqdeena lagu dhowray waxaa ka mid ah gabadhu in aynan la kelin noqonin qof ajnabi ka ah. yaanu mar walba la kelin noqoto maxaa soo baxayo dhibo badan oo qaar ka mid ah hadda bulshadeena haysto. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ku yidhi laa yakhluwanna rajulun bimra'atin ilaa wa macaha duu maxram. nin yuu la kelin noqonin gabadh ilaa gabadhaasi inay la joogto maxramkeeda mooyaane. waxaa kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey gabdhaha in loo soo galo oo guryahoodii ay ku jireen la iska soo galo. waa kuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi iyaakum wadukhuula cala annisaa. waxaan idinka digay inaad dumarka isaga gashaan guryaha.
nin saxaabadii kamid ahaa oo moosha fadhiyay wuxuu yiri yaa rasuul allah ka waran haddaan gabadha dumaashigeed ahay bimacnaa nin baa Soomaaliga nooc u yaqaanay ninka gabadha qaba walaalkeed haddaan ahay gabadhan u soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri alhamul mawt ninkaas waa geeri waa mawdkiba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sidaa u yiri dadma badan lagama qabo ninka walaalka la dhashay ninkaaga la dhashay oo caruurtaada adeerkood weeyad isleedahay qofkiina wuxuu ka yahay ajnabi sibiqdii shaytaanna meesha way taalaa marka asagu kuwan kale waa laga digtoon xataa haduu guriga soo galo durba khawf ninkiina uu ka dhidhi guriga lahaa maxaa dhihi jiray dadka kaleeta ee islaamka ee meesha joogaan way la hadlayaan ama bulsho ahaan waa laga didi nin kaleeta haduu wax guriga soo galashadiisa ku badan laakiin caruurta adeerkood oo ninkii walaalkii ah waxa la leeyahay xumo lama damcayo oo xumo lama soo dhiganayo inuu xaaskii walaalkii la damcayo sadarteed asagu waa mawdka ugu daraabo waa ninka wax kala goyn karaba midda toddobaadi midda sagaalaadi waxay tahay in laga dheeraado dhaxgalka ragga in ragga la dhaxyaaco nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu salaada ka hadlayay ayuu taa ka digay fama baaluka bulshadii kale caadiga ahayd salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ragga sufuuftooda waa markii la isku daba tukan jiray hadda masaajid waa inoo kala xiran yihiin kala qolal baan ku tukanaa ragga sufuuftooda waxa ugu khayr badan kooda ugu horeeyo waxaana ugu shar badan ka ugu dambeeyo sufuufta dumarkana waxa ugu khayr badan midka u dambeeyo waxaana ugu shar badan waxa ugu khayr badan ka ugu dambeeyo waxaana ugu shar badan ka ugu horeeyo ragga ka ugu dambeeyo maxaa sharka loo saaray dumarka ka ugu horeeyana sharka loo saaray waa meesha isaga dhow yihiin ay is arkayaan gabadhii hadda ninkii bay ku daba sujuudaysa ay ku daba xiranaysa ajnabiga ka aha waxyaabaha kale gabadha akhlaaqdeeda lagu ilaaliyo waxa kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam nahyiga adag ay adkaynta uu ku adkeeyay gabadha muslimada ahi inta isa soo carfisay inay jidadka marto nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ku yiri ayuma mar'atin ista'darat fabarat bilqawmi liyajidu rihaha fahiya zaniya gabadha inta isa soo bukhuriso isa soo carfiso ragga la soo dhaxmarto carafta iyo udgoonka ay ka helaan oo carafteeda ay uriyaan waxay tahay gabadh macsi ku dhacday oo kale imaam al-qayyim alayhi rahmatullah markuu ka hadlay wuxuu yiri haweeneyda waxa loogu diiday in ay isa soo carfiso oo bukhurkii wixii ay ku soo marmariso banaanka u soo baxdo sadal lidaraa'i gabadha ama dib ku dhaca ama dib ama ka yimaada carafteeda laga helayo ay arinta loo jideeyay laana waxyaabaha ragga wax jecelaysi waxa kamida carafta ay sanka ka helaan waxa ay carfiyaan waxyaabaha wax u soo jiida ayay kamid tahay al-imam al-mawdudi alayhi rahmatullah asna wuxuu ka yiri markuu ka hadlay arimahan carfinta iyo laana aan ku badanahay waxaan kalimadan tafaasiisha u galiyay waxa wuxuu yiri loo diiday carafta inay gabadhu la soo baxdo caraftu wuxuu yiri waa rasuul u kala dabqaado labada naf ee sharwadayaasha ah naftu mar walba xumaha ay fartaa tan isa soo marisay iyo tan urinaysaba labada naf ee sharwadayaasha ay u kala qaadaa buu yiri waana basaaska ugu fiican ee durba kala gudbiye ayuu yiri akhbaarta si durba loo kala helo waana waxyaabaha wuxuu yiri aadka wuxuun in la fudaydsada aadka u adag oo akhlaaqda muslimka ah caama ahaan saameyn xun ku yeelan kartay kamid tahay wiil cadarku bimacnaa adan si af Soomaali ah ku soo koobna wuxuu ka wadaa imaamku calayhi rahmatullah gabadha isa soo carfisay ee aadka u udgoonay barta marayso durba waxay u nugushahay in ay bulshadii ay soo jiidato oo ragii ay durba ay tusiso in ay jirto islaan damac ku jiro oo isu soo carfisa ayaga dartood damacaasi muxuu kicinayaa ragii damacoodi laanu labadan
خلق الله سبحانه وتعالى وحو دحدغي waxyaabo isu soo jeedo aanu waxaana la dhaxdhigay غريزه mid walba midka ku jirto oo mid la isu guursanay la isu damaacinaya midii waxyaabaha fudeydin kara inuu keeno waliba tan ugu sahlan ee kamid tahay ayuu ku jiraa buu ku leeyahay ee durba fariinta aadka u gudbinayo in ay jirto baahi ama dumar rag istusinaysa inay meesha marayso waxyaabahaasi waa waxyaabo kamid ah Allah subhanahu wa ta'ala gabadha sharafteeda soo ilaaliyo waxyaabaha kale gabadha sharafteeda lagu ilaaliyo waxa kamid ah hadii qof uu ku soo dacatiyo oo si uu fudud ugu dhaca maxa ayadan u dajisan raggi muxarbaana looga dhigay oo annaga biseetay dawaabita nasaaran tahay oo ninka ragga ahay asaga waxba ma ku qaydnamaya ragga si gabdhaha looga ilaaliyo waa mid aan idin iri boodkaariya loo sameeyay horta gabadhii dumarka ahayd rag ka gilgilto oo dareemo oo ilaaliyo oo aanan saan loogu soo gudbin xayndaab u aado Allah subhanahu wa ta'ala ayuu sameeyay qofkii taa laga waayana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku daray kuwa maalinta qiyaamaha ilna xariisay lagu dayeenin laguna magacaabo dayuudku waxa weeye ninka maxaarimtiisa xumaha ka dhacay aan ka gilgilan ama xumaha lagu sameeyay aan ka damqanaynin gabadhii xaaskiisa ama walaashii ahayd ama maxaa la jiray gabadhiisii uu dhalay ahayd ama eedadii ahayd ama habaryartii ahayd oo wuxuu arkay raggii meeshaasi ay jidhkeedii haystaan ama ayadoo qaawan intay baxday intaas oo rag dhex marayso inta midna kama u dhidhiin ama ninkii reerkiisii loo daba maray in ka dhidhiin intaba ninkaasi waa dayuuth nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhaha si uu ilaalintooda u tashjiiciyana wuxuu yiri qofkii la dilo سوى رجع كهالليو من قتل دون أهله فهو شهيد قفكي لديله السبق إلى شنايو أو الدجالما يعرض بسي شرفتيسي أما ولا شيء أما حاسس أهات الظالمين وأصول والربان إني كحد قدبان عرضيس أسو الدجالما يو قفكي كل أنت سيدا سول قديله وشهيد شهيد كان فضائيش سوية قانا قف كستو مسلمة توكا قرصون معه هدانا قبل تشد كذا قفكي حد قدب كسمي الله سبحانه وتعالى هدانا حد كلا تأيو لغا الله سبحانه وتعالى وفي سورة المائدة كويل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض علماءنا وحي ماشا سيكون مقعابين حد الحرابة حرابة داسي أو لو قادنيو قبل قفكي كود عتيي أو وحاني هذا لو وريقا يعني قفصي بلد الدران كو مقعابان نينكي كود أو قبل المسلمات أو قيستو إن لقوا فينا يحدا إن لديلو بقولنا لغا جرو ولا دلدل أسوأ أو إسداف لو جرو لغا مسافرية دولكا أي أرلادا إسلامك وفسادك الله صودا معان ومدى مسلمين تأمركا وأمد مرول بدورسون أو قاشان وين له مر قاشان كيدو وحود شوغا قفكي وحا سمين لها وحو haddii uu sameeyo ku dhaco dib ka soo gaaraya walibeetana arrimo adag ah inuu helo haddii ay maxaa la dhihi jiray intuu dhibka dhicina wiqaayo ka horeysa la sameeyo waxyaabahan hadda akhrinayna waxay ahaayeen gabadha mu'minada inay ka wiqaayoto ay ka digtoonaato inaanba lagu soo dhicin jidhkeeda lagu soo xadgudbin ragana sidii oo kale قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله سبحانه وتعالى ليه رجي مؤمنين تها وحد كتر هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا آيات سعور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أرجينا اللابع وحفظية فروجتنا سلاس أيها إذين لورصان وإذين طاهرصان
وحالو إلى لي أمدي مسلمين تأهيت رجي دمركي استحمري دانه ذي فشني إنه نوال بنيك كلا أرجي سلامه سي آذان وأركن مفاتين تسود أوقفت نوبين الله سبحانه وتعالى زينادي إنا لغود عن وحو إسها قبتي ومدى أوغا قبتي قول دير ولا دير بأوغا عليه ولها قفك انتو سوقود بسيحوغا قسميهيو أسنا وحا أتها عواقبتان أذاقا إلا الدلاء يقول الله جراه لبادي دامع هنقورياد ونفي الشيطان إسكاسو قلانا حد قونية أتها لو زينادي توسو قدعو أيغو رالي إساقا أو إساسابسابتين تاسنا وحيتهاي labadii guursatay in dhagax lagu dilayo fiir umada islaamka ah sidii loo ilaalinayo xurumaadkeeda iyo maxaa la dhihi jiray wanaageeda labadii guur horay u soo marto waa in dhagax lagu dilo kuwan guur soo marina waa in boqol jeeda la garaaco ma garan kartaan wax ka wanaagsan xukmiga Allah subhanahu wa ta'ala ma jirto dunidan waalantay daba carartay dumarka ما هو إصلاح هذا وذي وناقاذي وحي أصعيان أي أرديان أي أرديان دحل أصحدين وحاوي دين هذا وناقاذي أي كوقول لأيه وأيها قلبي وذا حقد حسد كتشرو إن انت سواناقا قبل مسلمات اللسيان لقو إلى علينا إني أركي لأيه gabadhii ayay rabaan xayndaabkii wanaaga ahaa Allah subhanahu wa ta'ala u sameeyay in ay kaga soo saaraan waxyaabo xun oo dhoobeen oo wasakh u ekeen dabada kula jiro Allah subhanahu wa ta'ala waxay gabdhaha ugu soo doontaan aan xaqaagii baan ilaalinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala min maalintay dhalatay ilaa ay aabaheed gacantiisa ka baxaysa aabaheed ba xaqeeda lagu waajibiyay walaalkeed iyo waligeeda iyo intii markii hore wardiyaha ka ahayd markii aad ka baxday aabaha gacantiisa qof baa lagu wareejiyay hadana kaleeto si aad adigu mar walba u ahaato qof raaxo ku jiro oo nicmo ku jiro zawjkaagiiba hadana wadaadkaadiiba waxa la saaray gabadha qofkii ay xilaha u noqotay inuu istaago arrimaheedii oo dhan oo waajib looga dhigo haddii qofka ninka ahi ama qofka ragga ahi uu mas'uuliyaadkeeda ka soo bixi waayay ma aha gabadha muslimada ah inay gaal u duudo oo gaal u cararto ma aha ee waa inay diinteeda u soo cararto Allahi faradeela arintan uga cabato ay Allah u soo cararto kitaabkiisa munazzalka ah ku karimo ee ku wanaajiyay asaga ayaa loo baahan yahay inuu cararto ka warama gabdhaha maanta ku goodinayo haddii xeer gaaleed loo suurtagelin waayo inay diinta uga baxayaan qofka iimaankiisa intuu jira samaxan ku qiyaasi karnaa qofka ama qof diinti ka jaahil ah oo jahli waan ugu cudur daaraa mise waa qof kas iyo ola kac u soo kacay ummadda islaamka inuu diintooda tashwiish kaga furo anigu waxaan isleeyahay waa qof la soo diray oo ummadda inuu diintooda tashwiish kaga furo loo soo diray waxa ka sii daran laakiin oo ka sii xun inaga u yeelanay dhagaha weelaynayo u sacabatumaynay run u malayna arrinkaasi waxa ka sii daran inaga ku qanacnay in aan islaan annagoo ah buug yaroo xun intiina la dhex keenay la yiraahdo buuggaasa idin maamula kitaabka Allah ee fawqa 7 samaawaat laga soo dajiyona dhex yaalo waxa gabadhaasi dhiiranaantaasi siiyay inta la eg in aan ogolaanay ayadoo qaawan inay tiraahdo dumar baan afhayeen oo ahay qof alla amarkiisa caasiyay miya afhayeen ku noqon kara adoo muslimada oo mu'minada xaasha wakalla ugu horeynba gabdhaan matalayna haddii ay is ogyihiin haddii is ogeynba waxa ugu horeeya ku tunteen maxay tahay aayaadka Allah subhanahu wa ta'ala oo ah kow in ay jidhkoodii ka asturaan dadka islaamka ma aragtaan gabadh matalaad rasmi ah
waxyaabahan la soo dhoodhoobay ku dhaxle oo xijaaban oo asturan ilaa man raxima rabbuha intooda asturanna lama arka ayagoo fawaaxishta la soo daahiraya kuraasta ay leeyihiin dumar baa ku matalaabay ku dhacaamusan yihiin dulmiga kale iyo jawrka dowladda dadka islaam baan matalaynaa leh ee ku haysa gabdhaha muslimaadka ah waxaa weeyaan in ay tiri qoondaan gabadh u sameynayaan waayo sid kaleeto weeyaan waxyaabihiisa isu dhalayeen midba mid dhagaha looga haystay qawaaniintii wadciga ahaa ee u sacabatumeyneen maalin walba madaxweynaha dhaco kuwaa soo fuulay aan lahayn ku kala sacabatumeynay ee naqwa qabiil ay futada naga wadiya salka ay naga waday waxay soo socotaba maanta waxay maraysaa in caruurteeni iyo annagii muslimaadka ahaynba nala dhaho waxaan idin dhoodhoobaynaa waxyaabo yaryar waxaasaad ku qancaysaan in gaal oga soo qaadatay lacagna ay dabada ka wado waxbuu dhalaa waxa markuu weyn yahay haddaanan laga hortegin loona arkin inuu xumo yahay haddii maalintii buugaayanka ee xunka ku walba uu miiska ku garaacay maalintii la keenay intaan mudaaharaadna aan dhahno dad islaam aan nahay dadkan xabadda nagu dhaxwatay maalin walba waxay ummadeenna u laayeen aan la garanaynin waxay u laayeen ummadiina nag ka dhigay ma soo baxeen annagana waxaan ahaan lahayn ummad muslimiin ah oo qur-aankooda iyo diintooda haysato soomaali 100% waa islaam soomaali 100% waa dad ka dhiidhiyo diintooda iyo nafta gabdhahooda in loo dhaco laakiin wixii waxbaa soo gudbayo wax yar oo inaan u maleynaynin bidaarisima kugu gashay bay Soomaali tiraahdaa ayna u maleynaynin inay dhib u keeni doonto ay si fudud ku aqbaleen ayaa maanta dhibabkiisa midba midka kale maalinta midba mid ka xun maalinta ka dambe ka soo saarayo maalinta ka dambaysa midkii mid ka xun soo saarayo ilaa hadda ay gaadhay in Allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa ay ku dhaarato gabadh ayadoo garanaynin waxa ay u dhaaranayso rabbul izza jalla jalaaluhu haday ka xishoonayso magaciisa kuma in dhaarateen ayadoo wasakh wadato rijsi iyo xumo wadato hada dad baa ololeynaya waxay leeyihiin wixii baan tacdiilaad ku sameynayna ayu tacdiilin hada maxaa badbadal lagu sameyn wuxuu dhan ba qoron buu ahaay ma la wada tuuro bulshada Soomaaliyeed waxay la qabsatay dhagahooda in la dhaho maalin walba gabdhaha lagu dacatiyaa jidhkooda maxaa ka jira arinta haddii uu wax ka jirana waa arrimo ay maal gelinayaan oo ay lacaga ku bixinayaan hay'adaha ka dhex shaqeeya wadankeena haddii tale la iga yeelay ummadda Soomaaliyeed fariin baan bartan uga diraya risaalahan uga faa'iideysanay maanta muxaadaradeena ummad islaameen nahay hay'ad kasto magac kasto oo hay'ad ku imaato wadanka dhagax lagaga soo saaro buugoodii warqadahoodana ha la jeexjeexo liano maamul goboleedaha wadanka ka jira qaybo kamida markay dabagaleen kufsiyaasha qaar ka dhacay wadanka waa nacab hayna afafkay ku sheego waxyaabahaas oo kale waxa fangareeyo hay'ado waxa taas daliil kugu ah hal qof intuu xuma sameeyo uu bareeri karaa gabadh inuu meel intuu ka afduubto xumo ku sameeyo waxaana ku baaqaynaa ka inuu dil ahaado laakiin waxyaabaha ayna aqliyada Soomaaliyeed keenin ee dareemi karta inay tahay dad lacag la siiyay waxa ay fulinayaan waa kufsiga hadda nagu cusub ee dhalinyaro dhowra intay hal gabadh afduubaan ay soo wada faraxumeeyaan haddana soo duubaan waa arrimo nagu cusub arrimahaasina waxa keenayo hay'adaha wadanka dhex tuuran ee mid walba 100 qandaraas ay wataan ayna hor wadaan rag dayuusiina iyo gabdho muru'adi ka dhacay oo diintoodii ku badashay bicarad min ad-dunya wa ma fiha waxay rabbiina qaduuya $10,000 la soo siiyay ayuu diintiisii dhaneed ku gatay oo tuuri maaya gabadha walaashii ee muslimada ah oo ma tuuray ee taqariirta uu gudbinayo una fiirsada kufsiyada xilliyo kooban bay dhacaan xilliyadaas waxa weeye xilligii hay'ad walba ay gudbin lahayd malafkeedii camalkii qabatay
shaqadii gaalka ay lacagta kaga soo qaadatay intaysan sameeyeen heblayna ka dhacday inay tiraahdo xilligaasi ayay waxay ku maalgelinayaan oo ku fangareynayaan in icraadi gabdhaha muslimaadka ah lagu xadgudbo in bulshadii ummadii Soomaaliyeed ay ku abuuraan cudur xun oo wasakh ah in ay ayaga bidil adduunyo helaan Allah subhanahu wa ta'ala kuwaasi haduu hanuun oo la damcay asoo hanuuniyo haduu hanuun la damcina si degdeg ah ummadda islaamka Soomaalida kaga soo qabto bal inaga kaliya Soomaalida ma aha adduunkii islaamka oo dhan ayaa arrimaha lagu soo daayay haddii ay run sheegayaan qawaaniintan wadamada galbeed ee gabdhihii la qaawiyay ee shaqada la wada galiyay may wax u taraan ma jirto taqriiraadka qaar markaad akhriso maalin Allah keenay gabdha ayaa wadamadaasi lagu bahdila oo lagu faraxumeeyaa oo lagu dhibaateeyaa warqadaha xunxunka ay wataan hadday dad u adeegayaan ayagii qortamay u adeegaan oo qabtaan may وحكمك الله سبحانه وتعالى كسر يو كوناكسن ما لها أوقف مسلم لو كرامي جمد مسلم هذا أنا أوقسي وناكسن ما لها وحالينا هدتك وحال أرديو أفحكم الجاهلية يبغون ومح جاهلية أهبت أكل روريسان أو تربتان ما وحات ربتان قبله إسلام كائن أدعي لسان وحي أهانشرين بس وحات ربتان reer galbeedka wada ooyay dhibka ay ku jiraan inaad gabdhaha islaamka gelisaan kala waxaasha intay nooshahay gabadh islaama oo koryeeli karta kitaabka islaamka oo diinteeda u dhidhii karta intay joogto waan diidnay intuu qof muslim oo nakhwale uu joogo waan diidnay intuu caalim rabbaani ah oo hadlayo gayigan saaran yahay ifkana ku nool yahay waan diidnay واندينا وحال لوريغيسان ويكفينا كتاب الله فخرا ودين الإسلام كرامة وعزة وحنوفل الإسلام ماذا نضع أيضا نقبلا وحكالنا مربنا وحانات صلاة نبتين ورقالها كقرتين واندينا أفبانا لينهاي كربانا لينهاي للابتع هدي العقل لدين هايستو والعقل عنتين لدين ليهاي كان ولا ليالو النوشي قارن بلدين قرينا ومادة الصوماليات بايدين قارامة يسو أخلاق حمادة إيا وصخدة اللي وريقيسان هدي إسلامية هنون أدو جيدان لعقتا لدين يسويدين كبحنين هدي كالو هين ودمادي قالت كالتي مادين قولون كان إن عرورتا نادي كالا سعاررين إنو الإسلام يدو سعلينينو كورا اللابتا ميشا سيفخري كتاي هدي أتفانو أركتاي إنا أركتا داد يسفول فولا يا وصخة أما أتربت قبل قاونات كودا وتوت كورا حيساتو أما أتربت المال وعيل أو ملاك وأراركتو دول بيك بوحان دول باو حرايسان دول بي سفير كي وحو البلد شوغان دول بي وسخو البلد شوغان الدرووينك كل عليان بالله عليك آد مهشاس بالله عليك دول كنغا هنغا وسخينين هنغا وسخينين ومدى إسلام كدبه هذا أنغا إلمها هنغا وسخينين هنا وسخينين الضد نظيف وإسلام النهاي من نقانا وحاءت شيئيسان هدي ودعو بلشد الله هلنا أحكام بانودة جسن كاسي واندلينا أوضي أنه العقاتي وقبدي سعر دقادين يرو العاق كوقاتي نمامة شرعي حنكت صور ونبتين أنه معها قاضي أنه والله سبحانه وتعالى كتاب كيسان كاسانا كسعانينا كاظل ميغانو جيستين وحان رجينينا مالين وكتابك الله شقيو إن لو قاد ظلمي قاسي ونو جيستي وحاكا لتونو باقيا قبل والبقو مسلم هذا دين هذا برو يا لو ورامين وربين ونشيرين عندك هذا لو شبين وحكو للربا وناغون دين تا إسلام كي إلهي كوما يا هين ما شرتو برد دين هذا كودك أو حكو قفصتها قعنت هذا ميدكتا يعني لغا وسواسين أو شياطين وهذا الكمركي كوع العليان مركز دنبيت هالبو النقضة وحلا لقب صدا أيو النقضة يعني وريقا لغا داودعين وسخدا إلى وريقيان كتاب كاقي دين تاذكم الظلمين دقن كاير إيه صوماليات إيه خلدمينا يوما ما وحن الله سبحانه وتعالى كرجينينا إيه سو النقضان وظلمي قاسي أي أمدي برشدو كو دحجرتين لغا قبطو
إن قبلنا مسلمة عرض هذه شرف كذا وحيرا لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنه إسلام ماذا كوريا له وحكستو إسلام كحمال الرمانة الله سبحانه وتعالى وأيها حماه عليه إله سبحانه وتعالى دينته نغصه هداية لتوفيقنا هنا وافتشير كواها نوصلنا طريق سقاذنا الله نغياله الله سبحانه وتعالى وحاول يديسانينا إنه إيمانك نغصه إلى إيمانك هنغصه زمن فتن وإنكارا بالوجه يكوي دين تودي إيمانك وذقصون الله نغياله وبتكيني أن الله سبحانه وتعالى هنا حفظيه. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.